khaasatan waxaan halkan uga baaqaya qurba joogta waxaan oran lahaa maanta amal waxay soo diyaarisay wax ka jil awlaadeena badbaado u ah oo ay ku badbaadayaan mustaqbalkooda hadday tahay tacliintii maadiga ahayd hadday tahay tii diiniga ahayd hadday tahay waxyaabihii ay ilmahoodu kaga maarmi lahaayeen waxyaabihii ay ku soo arkeen Yurub wax ka fiican ayaa meeshan yaal iyo Mareykan waxa taal hawo firiisha waxa taal waxyaabihii ay ka heli lahaayeen oo dhan ayaa meeshan lagu diyaariyay runtii waxaan oran karaa maanta waxay ay tahay maalin shucuurtayda iyo niyadayda iyo aragtida maanta aad maaragtay u farax gelisay waxyaabo aan ku fikiri jiray talow ma dhici doonaan ama ma arki doontaa dalkan ay ka hirgalaan ayaa maanta ii muuqatay aad ayaan ugu faraxsanahay wax qabadka muuqda ee geesinimada iyo kartida uu xambaarsan yahay waxaan oran karaa shacabka reer Puntland ama khaasatan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan oran karaa projectigan maanta ka socda amal ay wado oo ah guryaha aan soo arkay oo aan isleeyahay A iyo B iyo C qof walba awoodiisa wuxuu ku heli karaa inuu maanta meeshan ku dego guriga isagu awoodo dhaqaale ahaan oo guryo nooc walba leh marka runtii aad baan ugu faraxsanahay aad bay ii farax gelisay waxaan ummadda reer Puntland ku boorinayaa in ay ka fikiraan ama ay qayb ka noqdaan horumarka dalka iyo dadka khaasatan waxaan halkan uga baaqaya qurba joogta waxaan oran lahaa maanta amal waxay soo diyaarisay wax ka jil awlaadeena badbaado u ah oo ay ku badbaadayaan mustaqbalkooda hadday tahay tacliintii maadiga ahayd hadday tahay tii diiniga ahayd hadday tahay waxyaabihii ay ilmahoodu kaga maarmi lahaayeen waxyaabihii ay ku soo arkeen Yurub wax ka fiican ayaa meeshan yaal iyo Mareykan waxa taal hawo firiisha waxa taal waxyaabihii ay ka heli lahaayeen oo dhan ayaa meeshan lagu diyaariyay runtii inta hadda aan joogana waxaan arkaya dad badan oo maaragtay iyagu runtii saf ugu jiray iyagu doonaya inay qayb ka noqdaan ama qayb ka qaataan guryahan runtii marka shirkadda amal waxaan leeyahay wax muuqda oo qiimo leh oo qaaya leh oo dalka iyo dadku u aayi doonaan ayaad qabateen insha Allah waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad halkan baaq uga dirayaa qurba joogta Soomaaliyeed khaasatan qurba joogta reer Puntland waxaan leeyahay qayb ka noqda horumarka dalkiina iyo dadkiina qayb ka noqda dhiiri geliya meesha aad dalalka dariska aad maalkiina ka gelinaysaan u hura oo u quura dalkiina iyo dadkiina geliya maalkiina oo farxadda iyo badbaadada dalkiina badbaadada dhaqankiina badbaadada diintiina badbaadada ummaddiina badbaadada qarankiina qayb ka noqda